Sidaan wada ogsoonahay DeepSeek ayaa soo baxay. DeepSeek waa maxay? DeepSeek waa AI, waa caqli macmal ah kaasi oo kaaga jawaaba su'aal kasta aad weydiiso sidii ChatGPT, Grok, Copilot iyo wixii lamid ah. Marka nimankani waxay dunida ku qabsadeen waa inay ka dhigeen xogtoodii oo dhan open source, macnaha open source, xog furan oo daahfuran oo la arki karo sida koodhka loo sameeyo oo dhan. Marka baynagu taa ma socono waxaan eegi doonaa bal qaabka su'aasha markaa qaybtan freega ay sii daayeen bal qaabka su'aasha markaad weydiiso uu fahmi doono su'aashii siduu u fahmayo ayaan weydiin doonaa. Waxaan leeyahay saaxiib iska waran, waxaan ku bilaabi doonaa saaxiib iska waran, bal waxaan eegi doonaa saaxiib iska waran siduu u fahmo. Saaxiib iska waran siduu u fahmayo ayaan eegi doonaa. Marka bal qaab buu fahmi doonaa, isla markaa uu fahmo waxa uu xogtayna siiyay ayaan eegi doonaa. Okay, black wuxuu ku leeyahay marka thinking waxaan maleynaya isagaas ka qaadaya, wuxuu ku leeyahay isagaas ka soo qaadaya. Okay, wuxuu ku leeyahay the user root, macnaha wuxuu qoray isticmaalahan aanu iga wadaa saaxiib iska waran. I recognize that saaxiib ku leeyahay means friend, waxaan aqoonsaday ku leeyahay saaxiib kelmadaas Soomaaliga inay tahay friend in Somali af Ingiriisi markaa fahmo. Now wuxuu ku leeyahay iska waran, let me break that down. Wuxuu ku leeyahay interchangeable oo aan furfuro. Marka wuxuu ku leeyahay is a reflex and waran buu ku leeyahay. Marka wuxuu which means to look or see, so put in together iska waran buu ku leeyahay. Labada kelmadood isku daray could be look at yourself or take care of yourself. Marka wuxuu arkay, wuxuu leeyahay qofkan su'aasha ku weydiinaya wuxuu ogaaday wax nafteeda ka warrama macnaha ama take care. Marka uu macnaystay waxbuu jabsaday, macnihii intaa ka dhigtay Ingiriisi uu bedeshay. Marka wuxuu ku leeyahay rasug but the user buu ku leeyahay root waran instead of maybe Somali type Somali sometimes the vowels can change buu ku leeyahay. Macnaha Somali vowelskeedu way isbedeli karayaan. But buu ku leeyahay waran is more common alternative to waran can also mean to the inform or report. Marka macnaha information ama report iska waran. Marka saasuu kelmadii uu ku isku habeystay wuxuu ku leeyahay in yourself. Markaas ka waran wuxuu ka soo qaaday uu markuu macnaystay wuxuu ka dhigay inform yourself, macnaha naftaada iga waran. That's not make much sense. Marka alternative buu ku leeyahay iska waran may be different face. Marka adigu soo jabsaday aakhir halkan wuxuu ku leeyahay the face saaxiib iska waran waa kelmadan weydiiyay in Somali translate buu ku leeyahay friend take care of yourself. Marka uu soo jabsaday marka macnihii wuxuu kala soo baxay intan uu ka dhigay friend macnaha saaxiib take care of yourself naftaada ka. Marka wuxuu ku leeyahay it's a friend buu ku leeyahay especially use to advise someone to say safe look or after themselves. Marka jawaabtu ka habboon ayuu sheegi doonaa. Marka wuxuu ku leeyahay waad ku mahadsantahay saaxiib adna iska waran, thank you friend you take care too. Marka xogtii dhammaydayna soo siiyay qaabku markaa su'aasha uu fahmayo isla markaana jawaabtii saxda ahaydeen ka rabnay. Waad mahadsantahay wiil saaxiib adna iska waran. Marka nimanka Chinese waa caqliga sida u tababareen ay nimanka ChatGPT, Copilot iyo Grok ay adeegsan jireen ay nimankan dibadda soo dhigeen. Waana sababtay maaliyadaha Mareykanka inay dhulka galaan stockskooda iyo cryptooyinka iyo xalaalay wixii maaliyadaha oo dhan inay dhulka galaan. Waa sababtay caqligan macmalka. Marka halka waxay nooga soo baxday kelmadeena uu fahmay. Saaxiib iska waran markuu waad mahadsantahay wiil saaxiib adna iska waran. Marka waxaan ku uri sidee ayaad ku garatay baan ku leeyahay su'aashan. Marka waxaan weydiiyay sidee ayaad ku garatay su'aashan ku weydiiyay. Marka waxaan eegi doonaa qaabku uu macneeyo u furfuro isla markaana inoo siiyo waxaan ku gartay waxa inaad markaa saas oo kale ayaan eegi doonaa. Marka loo eegi doonaa sidee ayaad ku garatay su'aashan ku weydiiyay ayaan ku uri. Marka halka waxay nooga soo bixi doonaa qaabka su'aashan weydiiyay uu gartay. Waa ku leeyahay thinking marka maleebo ku leeyahay okay buu ku leeyahay the user asking, macnaha wuxuu ku leeyahay qofkan wuxuu ku weydiinayaa sidee ayaad ku garatay su'aashan ku weydiiyay. Which translate markan turjumo uu ku leeyahay noqonaysaa how did you know the question asked, sidee ayaad ku garatay su'aashan ku weydiiyay. in Somali macnaha Soomaaliga Ingiriisidii ay isku turjumay wuu ogaaday. Marka wuxuu ku leeyahay first marka ugu horeysa waxaan u baahanahay I need to make sure I understand the question correctly.
degdeg ma markaa eego warka wuxuu ku leeyahay marka koowaad waxaan u baahanahay inaan fahmo su-aasha sida saxda ah u fahmo markaa baleeg wuu fahmay saaxiib iska warantii wuu fahmay qaabkii buu soo furay deetana wuu jajabsaday qaabkii soo furfuray markaa jawaabta saxda ahayd ee magarasa inuu ka rabnay aynu sina markaa eeg markaa qaabkii buu sharxaya sidaan ku gartay halkaas wax markaa eeg marka ingiriisidii dhan ayuu nooga saaray xog yar oo Soomaaliga oo jawaabteeni saxda ahayd aan ka rabnay markaa caqligan macmalka waa qaabka loo tababaray markaa markuu su-aasha la yar raago inkastoo isticmaalaan nimankani chips yaro aad awood yar oo aan jibabkooda aad u awood badnayn halka ChatGPT uu ka isticmaalayo intaasoo jib uu isticmaalayo kan wuxuu isticmaalaya jibab yaryar oo biro hore la isticmaali jiray markaa sababta xogta la raagay weliba sida haddii ma jibab qaali la isticmaalo wada one quick su-aasha jawaabteeda sidii ChatGPT uu ku soo tuuray saxsu isticmaal markaa waxa kale jawaab waad ku mahadsantahay su-aasha waxaan ku garan karaa kulli luqad Soomaaliga iyo macnaha erayada wala wadaagaysaa aqoonta luqadda uu kuleenay waxa la xog ku saabsan luqadda oo ay ku jirto Soomaaliga markaa waxyaabaha lagu tababaro waxa kamid ah Soomaaliga macaan uu fahmi karayo markii la tababarayay buu kulay tani waxay ogolaanaysaa inaan fahmo erayo iyo weero Soomaaliga fahamka su-aasha markaa wuxuu kulay markaad qortay saaxiib iska waran waxaan xiriiriyay erayadaas xoogaan haysto si aan u sharxa macnaha erayadu haystay ayuu sharaxay si macnaha uu soo saaro tixraac hore marka waxa kale marka xigta waxa marka weydiisay su'aal ku saabsan jawaabta hore waxa isticmaalay xogta hore si aan u xaqiijino ku jawaabo si sax ah sababaan xogta ugu heli karo marka wallahi aqal waa cajiib marka qaabkii loo tababaray weeyaan marka assalaamu calaykum saaxiibayaal muuqaalka sheer gareeya